السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داوديال ملك صوت نقد داونسان كسر دوادا برنامج لما قع بحي كرتده على أبوركا وبرنامج أنت بدن أنا كو أجنو أن تذكر إلى هي سيه هبوينك جاركا تذكر على أبو رضعة سيدا أبوان ذا أكله يتذكر اختراع أن على أبوينك قار أن ساك وحى النصيب ويا شيء برنامج كان إنه نجلس وقيب قلاه ويل أذو الدائرة لده أحمد عبد الحسين أرنتي أنا جاي إذنكم بعد لا يابي دونتان أن مركع عنو إذا تصنع وحيالها أصابا لجي أن أحمد أبو ما هتصيه وقتي سقالي جاء وناصر هري أن أحمد مركع هري كسر له برنامجك وعنده ولا سدان أن واتي أحمدو ساك كله صاد أنا أرجع نوض نجي يابي دونتا أنا جاي شعب كله وان أديك شعب كون يديك لا بحيا وأضاء شريح الدونا برنامجك أقول هاي يخلف أقول هاي لكن أحمدو بالله من هذا وقت كذا سوق هو بيا بالتاريخ هذا فرد عمل نصين كتاع أدبد ما سنتي سيدا مرال تاريخ ذو كوما حويان وحنا كسر باري قبل كتغير دكسي وصل عن كسر التيس قبل كا دكسي السر حتى الآن وحنا كوضع هرجيسة وعن دكسي السر معنا هرجيسة قبلاري وحنا معي كلاس فم 3 كذا أنا بحن أدوشي دان أن ما تجي على استينا بشدة قيب سنة صوبا لي وكنا تنقلي إن معناها أن سوق بيو إن حسمين كرايو أو dadka ay noqon karaan dad wax sameeysan karo isku filnaan kara macnaha marka alaabtan sameeyay kala duwan marka waxaan meenahay soo dhawaada waa tahay Axmed aad baad u mahadsan tahay kulli san idii sheegayba Axmed oo wiilka da'da yar leh runtii isma laha isaga iyo da'diisa iyo qalabka uu sameeyay marka la isba bardhigo kulli way kala weynaanayaan marka waxba yaan hadal idinku diyaarinay bal Axmedow sidoo kale inta uu barnaamijku socdo waxa iga xasuusina waxaan ku xusi doonaa Axmed asxaabtiisii ugu horeysay ee barnaamijkan markii uu sameeyay ee laambadahan iyo qalabkan iyo iswiijadan asxaabtiisii ugu horeysay ee uu bandhigay waxay kula taliyeen waxa uu ku yiri sidoo kale waxaanu xusi doonaa Axmed macalinkiisii ugu horeeyay ee isaguna markii uu qalabkan u qaaday ee tusaalaha iyo talada ka siiyay waxa kale oo iyagana inaga xasuusina oo aan xusaynaa Axmed kulli qalabkan inagu Soomaaliland baa noo ma samaysano oo imika laambada ma samaysan karayno oo caaga ma samaysan karayno cidii Axmed bal qalabkan cidii ka caawisay iyagana waynu xusi doonaa oo nala daawan doontaan balse inta ka horeysa bal aan idin kala baxo idinkii Axmed hay Axmed qaabka ugu horeeya noo soo qabanayso ee anaga daawadayaasha bal aadna tusayso muxuu noqon doonaa sadam aad baad ma astawraa qalabka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa leerkan aad ka yar waxa sameeyay marka leerkan wuxuu u shaqeynayaa leerkan caadiga isticmaalno oo kale guryaha aan ku isticmaalno marka waxa weeyaan leerkan anaga sameeyay oo macnaha abuuray oo halabuurkiisa kale waxaan ka sameeyay indhahay tooshkan isticmaalno habeenkii gudno waxaan waafajiyay dabkan AC-ga guriga lagu isticmaalay si macnaha uu u buuxiyo booska markii hore uu kala galay gaalku inuu leerarkan aan isticmaalno noo keenay anna waxaan isku dayay inaan ka maarmi karo leerarka imanaya ee gubanaya marka waxaan sameeyay leerkan aad ka yar waxaan ka sameeyay laba toosh indhoodi baan ka sameeyay ساوون بحدنا بشدنا ونستونا إن شاء الله سيدا لارك عادي لو شقين واتاي أحمد مركا لارك أنا مكاديك سميي ولا لارك عاد كوير وردد واحد وترجع شيء وردد أو كله سنة وضع أركان بدي كل مسؤول تجي لسوين دارد أما قل وينك سلام قل كفر يقول لوشته صح مركا بال أنا جد داود يا شباب الوضع داود سين حقيقي كوا ما سنت ورا فاكر سادوت شيء ده بس دام لارك وكعب حيمك لكن كعب حي وحانو الفكرية صار شكلها قوي كانوا يصحوا لكن وحوي وكوبي ساكو شيء لا بدأ يدودي آت كوي يربو كوبي هاي هدي أنكرديو وحدي راح استينا ويفكرين مال على أدوين هدي ده أنكرديو وحاسوت الجلسين ويفكرين تركسيو لا مركا مش ده وحنو شيء جيا لكن وتشابدي كوبي السمية ينا عديسي أنا سمين كروب كنا كردين كرايف كنا عنا waxaan isticmaalayaa oo kaliya indhahan u ba kordhinaya mar walba indhahan ayuu ba kordhinaya marka stoonadii kordhiyo waxa meesha soo galaya ifki ba sii kordhiya marka sidaamow
waan samayn karayaa laakiin waxaan jeclaystay maadaama aan macnaha ku jiro tijaabadii koowaad inaan samayn leerar kala duwan oo marka hore bulshada kana fahansiiyo oo aan tuso leerkan inaan kaga maarmi karayno leerkan kale caadiga ay gubanaya mar walba leerkan saan hore ugu sheegay walaal waxa weeyaan waa zevin energy weeyaan waa zevin energy dabka guriga aad isticmaalayso hadii jeer waxa lagu xisaabtamaa saacada inuu ku isticmaalno hadii leerka isticmaalno leerka waxa ku xisaabtamaa leerkan la isticmaalayo intuu soo qorayo marka leerkan wuxuu aad kaga caawin doonaa leerkii kale waxaan dheer yahay inuu maxay tahay dabkiina ku safin garanayo ifkina maxaan ku raadayay ifkina uu macnaha kulal aanu keenin ifkiisana uu safiican karo uu saxan karo saas ay nidaamkaas u waxyaaqasna waa tahay Axmed aad baad mahadsan tahay sida imika aad sheegtay laambadana oo kale waxa tii waa safe energy ama energy-ga kaydinaysa tusaalahan waxaad noo sheegtay imika labada guluub adaa sameeyay labada yar adaa geliyay sidoo kale tani waxa weeyaan fadhiga laambadaha caadiga ayaan ka faa'iideysanay waa tahay daawadayaal saadooda arkaysaanba laambada imika waa naga gelinay way baxaysay waad arkayseen waxyaalaha ugu horeeya Axmed uu ka fikiray markiiba waxa weeyaan laambadahan waaweyn la inoo keeno dabka naga cunaya tiyo kalumbu Axmed soo yaro koobay imika dhowtole ama casaan baa laga dhigayaa ama buluug baa laga dhigayaa marka waxay noqonaysaa tii lagu seexanayso Axmed hadii qofkii marka uu sag dhigayaa lightkiina aad buu u yar yahay marka waana lagu seexan karaa kulay lama soo saarayso marka qaarna wax waa lagu akhrisan karaa kulay lama soo saarayso waa tahay anta uga sii gudubno kulay qalabku aad buu fara badan yahay mid buu ka sii xasaasiyay marka kanoo kale imika waa kii ugu horeeyay aad aragteen laambada Axmed uu sameeyay waliba aan kulay kana inta badan laambadeen waxaan ku naqaanaa kulay heat bay soo saarayaan waa tahay Axmed qalabka labaad ee inoo soo qabanayso wacdaraha muujinaya wacdaraha muujin doona muxuu noqon doonaa sidaama wuxuu noqon doonaa laambadan bay noqon doontaa laambadan waxa weeyaan waa laambad aynu isla wada garanayno aynu ku isticmaalno goobaha aynu ku shaqeyno degno ayaynu u isticmaalnaa laambadan waxa weeyaan waa laambad if sameynaysa oo ifkeedu fiican yahay guryaha waxaa loo isticmaalaa inay if sameyso waxaana lala isticmaalaa switch anigu markii aan isku dayay switch-kan dadku ay baktiinayaan marna ay shidayaan ayaan isku dayay inaan bedelo oo aan ku bedelo system adigoon switch u tagin inaad isticmaasho marka switch u tagin inaad isticmaasho baashan haddaba maxaa ii suurtagelinayay baashan waxay leedahay control system wax loo yaqaano remote control bay leedahay remote-kaas ayaa loo isticmaalayaa oo lagu controlaya marka laambadan waa laambadii hore caadiga ahaan isticmaali jirnay balse waxaan ku daray anigu laambada ma sameyn laakiin waxaan ku daray qora systemka wax shaqeynayso wax ka bedelay ayaan wax kala bedelay marka waxaa loo isticmaali doonaa remote control iyadoo dab ku jirta aanay bixin marka remote la shiday baxdo waa tahay Axmed tanaaba tii hore ka sii yaabadan ba Axmed tan waxaad noo sheegtay inaad casriyeysay waan casriyaa sidoo kale imika deemka muuqaalka saa loo eegayo waa laambadayna caadiga marka tiraado laakiin waxaan ku shidayaa wireless ama remote-kii daawadayaasha qaar ba laga yaabaa inay maskaxdooda ka dhaadhici weeyaan kale weyn tusi doonaa indhahooda kale qof kasta indhiisa macallin laakiin Axmedow markii aad sameynaysay tan remote-ka caqabadi ka qabsatay maxaad ka fikirtay waxaan ka fikiray sidaama waad ogtahay waxaa jirta laambadahan isticmaalna switch-ka loo isticmaalo meel dhow baan kaa tusayaa qolkiina imika wuxuu leeyahay leer iyo switch habeenkii markaad baktiiso oo kale waad soo kacdaa dad u baahato inaad kacdo waxaad daydaydaa meeshii switch kaa xigay habeenkii waad soo kacaysaa oo salahan ama qof sii baxay ka oran sanyo leerka iga sii baktiy laga yaabaa inuu ilaababa marka tiiba soo fududeyso waxa laga yaabaa qof isagoo adigoo fadhiya oo jiifa inaad baktiin karto laabadan dushaada ku xidhan sax marka ay dee gurigii waad taqaanaayo markuu muddo noqdo dee waad shiiri karaysaa waxyaala meesha la shiiri karaysaa laakiin simply waxay aad isticmaalaysaa adigoo fadhiya oo jiifa inaad control karayso systemka waa tahay daawadayaal halkaad weli nagala socotaan waa shabakada Aflax News sidoo kale goobtan aan barnaamijka ku qabanay ee arkaysaan dee wax weeyaan waa beerta libaaxida ama waxa loo yaqaano la cashay libaaxa kale dadkiina qaar baa u yaqaano la cashay libaaxa kale Axmed libaaxda ma cashayn karayne waa tahay barnaamijku waa barnaamijkii kartida hal abuurka Axmed wuxuu inoo tijaabin doonaa laambadan uu yiri waxaan ka sameeyay nidaam remote ama wireless uu controlayo kale anigoo ma rumaysan Axmedow in laambadaas imka ay bixi doonto ma rumaysan laakiin anigii dadweynuhuba roon eegi doona ay Axmed sidaama waxaan kala ku yar sheegi lahaa horta markii hore aan baashin sameynayay system hore ku sameeyay markii dambe casriyay markii hore waan idin sheego gulubkan waxa weeyaan wuxuu ka koobnaa indhaha yar tooshashka markaan
tijaabada waday indhahan yar bal isticmaalay laakiin imika waxaan isticmaalay markii hore indhihii aan say ku sameeyay waxa ahayd indhahan oo kale oo remote ku isticmaalay laakiin markii aan casriyay waxaan isweydiiyay markaan barnaamijka hore soo bandhigay baa waxa feedback iga yimi bulshada dhexdeeda oo macnaha jawaab celin baa iga timid ayaa waxay igu yiraahdeen qolay inama ila taliya waxay igu yiraahdeen axmed oo ka warramay guriga maadaama aad samaysay indhahan control system kan aad bedeshay switchka miyaad indhahan casriyeyn kareen bay igu yiraahdeen si ay meeshii bulshadii ay uga wasinaato meheladii gurigii ay u isticmaali kareen laambadii hore caadiga oo kale marka waan isweydiiyay laakiin way igu adkaatay waxaan idhi horta waan isku dayay kuma ballan qaadi karo balse waan isku dayay baan ku yidhi marka waxaa dhacday in aan isku dayo barnaamijkii alxamdulilah horta ilaahay wii fududeeyey wax walba isku dayo waxaan u sheegaya bulshada wax walba isku day waxa uu muhiim waxa weeyaan waa qayb kamid ah waxaad sameynayso isku day marka waxa weeyaan waan isku dayay alaab baan u baahday markii waxaan isweydiiyay waxaad u baahan tahay wixii aan galay meesha markii waxaan ii soo baxday inaan layer kasta system kasta oo leed ku leeyahay nooc kasta oo leed if sameeya inaan ku control karo systemkan waa tay axmed oo aan wada tijaabinaba laambada iyo sida u baxayso iyo sida remote loogu controlayaba okay waan tijaabinaa imika laamadii saad u jeedaanba وتاسو ما بحين ولي ما بحين waxay leedahay dabka uu jooga wakaas remote kan la shaqeynaysa hadaba remote kan la shaqeynaysa remote kan batterigaas ku shaqeynaya marka ataykan wuxuu bixin doonaa wireless waa taqaanaa oo aniga isticmaalna ataykan ku sameeyay inta kan la isticmaalayo bixinaya radiation marka remote kan batterigaas galaya marka galno waxa la isticmaalaya laambadii marka wala shaqeeya marka laambadii u taabixaysa remote kan waqtiinaya laambadota waatay axmedow waad daawadayaal wasaad wada arkaysaanba kani waa remote-kan gacanta aan ku hayo axmed isagaa remote-kan sameeyey remote-kan waa kii gawaadhida axmed ka faa'iideeyey qalabkii ku jiray buu ka bedelay qalab kale u geliyey sidoo kale laambadna arkaysaana xagga gudaha waxbuu ka bedelay markaa wuxuu axmed ka fikiray inuu iswaafajiyo laambadan qalabka ku jira remote-kan qalabka ku jira iyo laambadan qalabka ku jira inay islahaadaan saad arkaysaanba haddii imika aan shido way shidmaysaa marka aan baktiyana way baktiismaysaa tusaale ahaan waad arkaysaan xaggana waa laga baktinayaa tanoo kale waxay faa'iido u tahay qolkii aad keligaa iska dhex fadhiday dadka ku odhanaysa iga sii bakti ama aad wahsanaysay inaad adigu keligaa tan sariirta aad saarato kadibna aad shido marna aad baktiso waa tahay axmedow da'daadiyo isma laha qalabkan aad samaysay sax ma cid gaara ku bartay waxaanoo buug gaaraad akhrisatay ma website gaara iyo youtube-ka ayaad waxbaad ku xidhan tahay macallimiin cadaan oo gaaraad ku xidhan tahay dee bal wax la fahansiiyo sidee sidee muuse ku sheegay waxa weeyaan horta waxaa jira waxaad weydiisay su'aal ah horta waxaan kaa caawiya way jirtaayo horta waddanka gudihiisa meel wax lagu barta ma jiraan oo farsamo gacan hadday noqoto tuition marka ma jirto laakiin aniga qof baa jira i caawiyey oo haddii afkaar noqoto la wadaago tala hadday noqoto dhiirigelin hadday noqoto fikir ka sobiyo cilmi ahaana macaliniga caawiye baa jira oo macalin idiga fiisigiska cabdiqaadir cabdilaahi jilaani oo macalin idiga dugsiga sare salaam secondary school aad buu mahadsan yahay waan ka salaamayaa marka macalinkaas baa jira waxa kaloo aad iyo caawiya internetka ku xiran anigu oo wax ka baadha inta badan oo wax ka baadha waayo alaabtaan isticmaalay anigu imka boqolkiiba 60 ilaa boqolkiiba 70 agabka elektroniga aad baan u aqaanaa magacyadeeda si u shaqeeyaan waayo waan bartay waan baaray magacyadeedan baaray si u shaqeeyaan baan baaray kadib waxaa ii suurta gashay maadaama aan bartay shay kasta suu shaqeeyo inaan anigu wax samayn karo oon abuuri karo oo mid kasta midkiisa u geyn karo qaar baa AC ku baxa qaar baa DC ku baxa marka maadaama aan elektroonigii kala bartay qalabkii aan kala bartay waxaa dhiciisa u fududaanaysa inaan shay kasta meeshuu munaasab iyo muhiim ku ahaa inaan dhigi karo waa tahay axmed aad baad u mahadsan tahay daawadayaal sidoo kale axmed waxa uu sheegay inuu jiro macallin ka caawiyey qalabkan iyo agabkan iyo waxaan iminka aynu wada daawanay oo dhan kolley macallinka macallin cabdiqaadir cabdilaahi jeylaani ayuu weeyaan sida axmed sheegay dee macallinkaasna waan u mahad celinaynaa soma axmedow maadaama dee uu qalabkan kaa caawiyey uu fikirkii kugu kordhiyey oo laga yaaba waxyaala badan inuu aad dee ka bedeshay waa tahay weli halkaad nagala socotaan waxa weeyaan shabakada aflax barnaamijkuna waa barnaamijkii kartida hal abuurka goobtan aanu ku duubnayna waxa weeyaan waa goob runtii dee aad wada garanaysaan laba magac baa inta badan libaaxa la cashe iyo beerta libaaxa
عندنا وتقانا بيرت اللي بحنا وبيرت اللي بحنا كنت برنامج كان انتنا كلا وتقانا اللي بحنا عشانه واللي بحنا شويه marka xawayaan waxaan wada daawanayna aniga iyo idinkuba macalinka Axmed la taliyay maadaama goobtiisi aan ku booqanay daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم لله ومحضله أولا نحن واحد جالسين كسو قدبيو أرضي كمدها أرضي الجزء مري توكسيجا ونهانتي مراحشي كوبا وحبرشدي ستوكسيجا سرع ما مركب حيسة في سيسكو كلاسين هي وحيابة تالنتي أما نهانتي أقوى كي بس كحدي سيولي هذا شغال سواء كلا أنا سو قدبي أما أنا سو شيء ayaan jeclaystabarina la wadaago groups ka social media ardaygaas oo la yiraahdo Axmed Cabdi Xuseen wuxuu ka mid ahaa dufcad na soo martay class 2 ama form 2 secondary markuu ahaa xiisadaha oo kale markay si dhamaanaya ama xiisadu ay tahay mid bartanka la marnayo oo kale ayaa mararka qaar hadba xiisada sharaxada aad ku jirto su'aal ama laba su'aalood ama saddex su'aalood hadba intuu ka gaarsiin karayo oo ku salaysan casharka aad arkaysa ama aad dareemayso inay kala si xeel dheer tahay oo ka fog tahay ayuu weydiin jiray marka waxaan jeclaystay maadaama ardaygaas uu yahay arday firfircoon oo soo jeeda inaan ku dhiirigeliyo ama aan siiyo awareness ama aan siiyo talooyin fara badan oo ku saabsiisan sidii uu horumar uga gaari lahaa ama uu isku dayi lahaa inuu hore uga sii wado waxyaabaha uu sameynayo ruuxantii waxaan aad u sii xasuustaa maalmaha ka mid ah ayaaba waxaan sharaxay cashar la xiriira physics-ka ama oscillations-ka oo kale kadibna su'aalo uu iga weydiinayay markaan dareemay ardaygaas inuu ruuxantii ardayda kale aad muddo inuu ka yaraa xagga maskaxiya ama uu soo jeedo ama uu in badan ka yaro horeeyo ayaa waxaan jeclaystay inaan kulan gaaraba la yeesho si aan xog badan uga helo waqtiga waa siiyey ruuxantii ardaygaas wuxuu noqday arday tilmaaman oo hadday noqonayso xagga ka qayb qaadashada galaaska ama class activity-ga iyo hadday noqonayso wax soo jeedintaba arday aad uga dhisan ama arday soo jeeda kadibna wuxuu ii soo bandhigay waxyaabo uu sameeyey oo ruuxantii marka hore aan islahaa malaha macquul maaha ilaa markii dambe aan arkay tusaale ahaan oo kale wuxuu yidhi macallin waxaan isku dayay oo aan sameeyey wax la yidhaahdo water tank indicator ama qalab lagu cabiro hadba taangiga aad isticmaalaysa biyaha ahi inta ku jirta ama inta uu shaqaynayo ama ruuxantii maraaxisha uu marayo markuu buuxo markuu bartanka marayo iyo markuu kaasi dhammaanayo adigoo iska jooga qolkaaga aad kala socon karaysa ama aad ogaan karayso sidoo kale waxa uu ii sheegay inuu sameeyey ama uu soo bandhigay wax la yidhaahdo water pump isagoo biyaha ku tuuraya taangi oo gaadhsiinaya intuu ka dalaco meel hoose ama gravity-geedu yahay mid hoose sidoo kale waxyaabaha uu sameeyeen aadka u sii xasuusto ruuxantii uu tusay ama uu soo gaadhsiiyey ardaygaasi ee annaga u kaliftay inaan ku dhiirigeliyo inuu halkaa ka sii wado waxaa ka mid ahayd wuxuu sameeyey wax loo yaqaano remote control lab ardayda ayaa waxaan u sharaxayay wax la double switch system ama two-way system switch ku shaqaynaya laba qaab ruuxantii aqaladeena markaanu soo galno inta badan qaabkay u hamaysan yihiin waa qaab hal switch oo keliya tale tusaale ahaan markaad aqalkii googlato gogoshaada xaggaa dambe oo kale waxaad samaysaa switchka marka hore wuu kuu shidan yahay kadibna waad soo gashaa gogoshaada hagaajistaa dhammaystirata markaad gogoshaada dhammaystirato ayaad dib switchka ugu noqotaa adoo dhanna gogoshaadii ka sii eegaya oo halkaa u sii maraysa waddadii sii eegaya kadibna dam waad baktiisaa waad soo dhaqaaqdaa gogoshaadii waad tagtaa aad u seexataa iyadoo madow intaad soo socotana ay ku madow Axmed markaa wuxuu isku dayay inuu systemkaa kaba maarmo oo isaga oo fadhiya ama jiifa sariirtiisa ama furaashkiisa dushiisa uu isticmaalo remote control oo isaga oo fadhiya marna ku baktiinayo marna ku shidayo laambada ilaahayna subxaana wa tacaala wuu la garab qabtay
waanu ku guulaysto waa uu sameeyey isagoo runaanta qalabku ka sameeyey xitaa isoo bandhigay oo isticmaalaya toys carruurta ay ku ciyaarto ama remote control car gawaadhida yaryar ay ku isticmaalaan gawaadhida carruurta marka iidaha oo kale ay ku kaxeeyeen remote-ka isagoo ka saaray qalabyo ku jiray oo u isticmaalay si uu ugu bedelo in laamadan uu kaga shaqaysiiyo oo ugu isticmaalo as remote control waxyaabaha kale axmed uu sameeyey ama uu isku dayey inuu soo bandhigo waxaa ka mid ah wax loo yaqaano power bank oo run ahaantii iyagana aan soo qaadnay oo maalin maalmaha ka mida galaaskooda oo lahaa daabuulka isaga dartii aan uga baajiyey barnaamijka ay soo jeedin lahaayeen oo runaantii ay barnaamijkoodii koobeen oo ay yareeyeen si ay isaga u siiyaan ahamiyad una dhiirigeliyaan axmed sidoo kale gurubyo badan oo ku xidhayo asxaabtiisa oo dhiirigeliyey qaar financial support gareeyay baa jira qaar allahuma salli calaa maxamed kala qayb qaatay barnaamijyada uu soo jeedinayaa jira maalintaa waxa ay daabuulka kusoo bandhigeen markaa waxyaabo aad u qurux badan galaaskiisu oo run ahaantii aan odhan karo maalintaa haddii klib laga samayn lahaa run ahaantii waxay noqon lahayd wax aad u weyn oo u qaalay aniguna aad u jeclaa in ardaygaas si motivationkiisa sare loogu sii qaado in klib laga qabto laakiinse xagga alle aanay ka suuro gelin oo wax kaliba aanan ka haynin ama walow ay yar tahay haddii xataa wax laga hayo mobil ama waxyaabo yar noocaas oo kale laga sameeyey si axmed in badan aynu sii dhiirigelino qalabyada uu sameeyey intanoo keliyata maaha ama laguma soo koobi karayo waxyaabaha loo keliyata laakiinse in badan waxaan odhan karaa axmed maanta haddii waddamada qaar uu joogi lahaa ama waxyaabahan aynu soo bandhignay oo kale ama waxyaabaha uu soo jeedinay oo kale uu soo bandhigi lahaa waxaan aaminsanaan lahaa in ahmiyad gaara la siin lahaa ama sare loo qaadi lahaa martabadda uu taagan yahay sare looga sii qaadi lahaa sidoo kale waxyaabaha uu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa saving energy lamps laambado aad ku isticmaalayso aqalkaaga ama laambado aad ku isticmaalayso gurigaaga oo intay doonaan dabka kuu seef garaynaya ama aan ka halus garaynaynin oo runaantii axmed uu ii ballan qaadayba oo iguri waa kuu keenayaa oo aan ka sugayo inuu ii keeno si aan ugu isticmaalo xaafadayda runaantii kolley waxaan filayaa haddaan sidaahdo barnaamij ama laba ama saddex si faahfaahsan ugu kala bixiya inaanay kusoo koomeynin barnaamijyada ama waxyaabaha innovationka uu sameeyey ama ictiraacista uu sameeyey ee ay u baahan tahay intan in ka ballaaran iyo weliba dhiirigelin intan kasii fara badan sidoo kale uu u baahan yahay gacan qabasho hadday noqonaysa xagga dhaqaale ah iyo hadday noqonaysa xagga qalabka uu u baahan yahay mararka qaar waxa dhacda axmed in badan waa samaysanay qalabyada qaar inuu waayaba ama ay u suuro geli weydaba qorooyinkeena soo dejiya alaabta inay keenaanba oo waayaba ama uu soo heli waayaba qalabkii uu wax ku samayn lahaa isagoo inta badan la kaashada maskaxdiisa iyo hadba martabadiisa aqoonadeed ay taagan tahay insha allahu tacaala inuu wuxuu rajeynayaa guul iyo khayr buu rajeynayaa waatay aad u mahadsan yahay macalin cabdiqaadir cabdilaahi jaylaani ayuu halkaasi oo inoo sharaxayay habkii uu axmed u caawiyey iyo nidaamkii iyo systemkii iyo su-aalihii uu axmed weydiiyey iyo jawaabihii macalinku siiyey axmedow labadaa qalab aynu barta kaga tagno qalabka saddexaad ee aynu soo bandhigayno ee bulshadana ka yaabin doona aniga iyo bulshadaba runtii nagu noqon doono dee muxuu ahay u qaadan waa muxuu noqon doonaa talo aad baad mahadsantahay sidaan wuxuu noqon doonaa laabadan bay noqon doontaa sidaan idiin sheegayba inta badan inaan maalin ila joogay baa wuxuu igu yidhi axmedow ma kuba tahay buu yidhi inaad xoogga saarayso dhanka laambada oo waxaanaad samaysay laambada u badan yihiin waa run baan ku yidhi waayo maanta waxay noo yimaadaa waa leedho china leedhku inuu soo bedbedelaa mar midab kala bixinaya mid yar mid weyn marka maanta waxaan ogaaday bulshadu waxay u baahan tahay if yahay ya bulshadu waxay u baahan tahay waa if maadaama uu noo soo kala bedelayo ay leedhku suuqoodu badan yahay tan waxaas ka faa'iiday oo maxaan ku rahdaayay adiguna ka qayb qaadadee horumarka ballaaran waa tahay axmed markaa laambadana talo noocuusha iyaduna ma wireless ba laambadan iyadana waa control sax iyadana waa system control bay soo iskelisaa waxa weeyaan iyadu waxay u shaqaynaysaa heating gacanta waa taqaanaa sidaamo waxa isticmaalnaa heating ka wada kulaylka gacantaada haa ay dareemaysaa waa taqaanaa waxaa jira mobiladan screen mobiladan smartphone-ka touch ayaa jira
touchkaas wuxuu dareemayaa dhiiggaaga صح marka haddii aad touchkaas si kale axmed aan u dhigno صح moobilkaaga marka uu qof soo garaaco صح markaad dhegta kasoo fogeyso waa kan uu shidmaya وشنيا laakiin markaad u dhaweyso وبختينيا uu baktiirnaya soo ma marka nidaamkii oo kale adigu laamadu uga faa'iidaysa سنسر بعد waxa weeyaan haddii aad imika touchkaagaas aad ku taabato shay aan dhiig ku jirin sida gacantaada oo kale ma dhaqaaqin laakiin dhiiggaaga ayuu la shaqeynaysaa marka exactly tan oo muraayad iyo kale gacantaada la shaqeynaysaa dhiiggaaga markaan taabama ayay baxaysaa waa tahay suu axmed sheegay laamadani waxay ku shaqeynaysaa waa heating systemkii weeyaan amaba waxay ku shaqeynaysaa dhiiggaaga markaad gacanta u dhaweyso ayay baxaysaa kolley anigu ma aaminsanay inay baxayso laakiin aniga iyo idinkuba si aan u shaki baxno bal dee fiishteeni waatuna wayna agtaa lahay waynu gelinaynaa dee hadday baxdana way baxday dee haddaanay bixin axmedo eedaaduma iskale waa tijaabo un bay ahaanaysaa insha allah aan wada daawan waxaa jirta horta laambadan waxaa muhiimadu tahay maxaad u samaysay faa'iidada maxaa looga faa'iidaysanayaa waxaa jirta sidaama waxaa jirta habeenkii waynu seexanaa qofku wuu seexdaa habeenkii laakiin habeenkii oo dhan dadka qaar baan hurtin salaad baa loo kici karaa bahyo kalaa loo kici karaa marka qofkii markuu kacayo wuxuu u baahanayaa dhif uu ku kaco ilaa qolkii waa madow markaa sidaa laajigeed wuxuu isticmaalayaa suujkii kale meesha ku xigay ayuu daydayaayee qolka marka anigu waan soo dhaweeyey qof isagoo flaashkiisa jiifo mustahiba iska wada rogin oo macnaha aan ka wada kicin flaashkiisi inuu simbali shidan karo leed uu macnaha ku marayo wadadii intii dee uu jiri lahaa inta xawlada iyo weelkii iyo wax sii jiri lahaa exactly marka anigu simbali waxaan sameeyey electronic baan sameeyey madaxa aad flashkaaga ama kubadiinka aad u ag yaallaa ayaad gashanaysaa laambadan markaa waad ku kacaysaa waad taabanaysaa switchka xitaa deydaymaysid switch baashan mare ma deydaysa switchka kaa xigi waxa haddaba laambadan maxaa kaa saaciday laftigeeda aad heshay ilaa meesha waa madow waxay leedahay indicator bay leedahay indicatorkaasaan u sameeyey indicatorkaas midab yaroo casaan u bixinayaa dee markaad soo toosto waad dareemaysaa dhaarashku kaa xigo ama jihadu kaa xigo laambadani kaa xigto dhankaaga midig iyo dhankaaga bidix marka simbali gacantaad xitaa iyadoon gaarin mararka qaar bay hiidkaaga sii dareemaysaa waa shidaysaa wac marka laambadan waxay leedahay if kooban bay leedahay macnaha imka laambadan isku if noqon maayaan sababtu waxa weeyaan laambadan waxaa loogu talagalay in area dhan ifiso oo macnaha if loo isticmaalo laakiin laambadan kudheedu waxay ahayd laambad la isticmaalo ku darso sidaamow laambad la isticmaalo bay ahayd oo guryaha lagu xidho laakiin anigu waan ka faa'iideeyey oo ifka ay soo saarayso waan yareeyey sababtiisa ifka aad baan u soo koobay sababtu waxa weeyaan qofku markuu habeenkii soo toosoo kale uu madowda macnaha ku jira xaalad in badan madow ahaa haddii wax ifa lagu shido ama daaqada tusaale subaxii oo kale qofku ugu food ibsanaysaa sababta waxa weeye ifkana ku dhibay indhahaaga in dooray macnaha ka maqnaa ifka maqnaa marka anigu isweydiiyey waxaa dadkii haddaad u samayso laambad aad u if badan dee wuxuu waa wada yeelaysay unde macnaha waxba kamaad bedelin ifkii hore kale marka laambadan way tusaynaa ifkeeda waan koobay if yaro kooban baan ka dhigay qofka aan dhibayn markaad soo kacdo ayaa taabanaysaa ku baxaysaa waa tahay daawadayaal aynu wada daawano bal axmed iyo laambada iyo qaabkay u shaqaynayso imika axmed waad gelisay waan geliyey indicatorka baxay indicatorka wuu baxayaa baxayaa wareerka cas casaankaa soo ma indicatorka baxaya marka laambada baktisaanaysaa laambad taas baktisaanaysaa control system bay ilaa aynu taabano ma shidmayso marka laambadaasi adigu bay doonaysaa haddaba laga hubi waa gacanta baynu taabanna gacanta baa ku adigu ku dhaada taabad doonayso anoo ka baqanaya ma taabanaya adiga taabanay anaa taabanay waa loo tijaabi simple ما شاء الله واتاي داود يلا ملا احمد قاعكم بختينا بالمره بقى انكو علينا احمد markii hore laambada intuu geliyay ayuu gacanta uga tagay kadibna way shidantay si aynu inaga aniga iyo idinkuba aynu shaki baxno mar labaad baan ka soo saaray waxaan isku day doonaa inaan isla gacantii axmed ula tagay inaynu ula tagna gacantii kadibna aynu shidno imika godkii baan geliyey halkaa waxaa baxaya leer casad arkaysaan leerkaa cas wuxuu inoo sheegayaa siduu axmed sheegay ba qolkaagu qolku waa madow dee siduu axmed inoo sheegay haddaan laambada aanay haysan wax kuu sheegaysaa iminka lightkaa yaraa cas baad arkaysaa kadibna waxaad dareemaysaa jihada uu kaa xigayo laambadii kadib baad taabanaysaa haddaba bal aynu wada taabano nin si baan uga baqayaabe taabo waa caadi simbalooyan waxay ku baxday iminka sidaa iminka gacanteeda ku baxday axmedow wada arkaa gacanteeda uga leer bade leer male laakiin waliidka dhiig baa ku jira laakiin dhiigoo kale wax ma ka cabaysaa dhiigumay laambadu waata daawadayaal axmed aad buu u mahadsan yahay weli xaggaad nagala socotaan waa aflax barnaamijkuna waa barnaamijkii kartida hal abuurka goobta aan ku duubnina waa goobta beerta libaaxyada ama libaaxa la cashay saad u taqaanaanba qalabkii saddexaad baan ninkan inoo soo qabanaya
kii hore saad arkayseen laambadan yar buu ahaa kii labaad waxaa lagu shidayay remote controlka qalabkii saddexaadna oo inaga iminka ka faraxaranay oo wuxuu ahaa kaa dareemaya dhiiggaaga laambadaha xumaaday isaguna wuu sameeyaa laambada xumaatay ee aqalka ka xumaatay laambadan oo kale markaad soo iibsato inagu way tuurnaa ma hagaajino markiiba waxaan dhahnaa laambad kale inoo soo iibiya axmed wuxuu awood u yeeshay asxaabtiisana uga faa'iideeyey jaarka weliba uga faa'iideeyey in laambad kastoo noocan oo kale marka loo keeno inuu isagu wax ka bedelo kadibna laambadiiyo socota waxaan ka wadaa laambadiiyo shaqaynaysa inuu isla reerkii u celiyo ama qofkii saaxiibkii u keensaday laambadii uu dib ugu celiyo kadibna ay laambad dibacdo taa waxaynu ka raysanaynaa haddii waddanka China uu inoo soo rari jiray 4 markab oo laambadaha noocana haddii Axmed la gacan qabto haddii Axmed la saacido waxaa hubaala in laambadaha la inoo soo dhoofinayaa ay 2 markab ama 1 markab ay yani isugu soo ururayaan 3 markabna dib loo celinayo marka waddanku isweydiiyo dhow waddankii Soomaaliland maxaa ku dhacay laambada badan bay qaadan jireen kulay Soomaaliland muwaadiniin u dhalatay baa u soo baxday laambadii iyaga dib u hagaajiyay recycle bin waxa loo yaqaan ama dib u cusboonaysiin ayaa loogu sameeyay marka taasna way iga xasuusin inaan barnaamijyada dambe ku soo badhina laga yaabaa laambad xun oo wax hagaajinayo iyo laambad caadi iyo isla tii xumeed oo kadibna wax hagaajiyay taasna way iga xasuusin qalabka saddexaad ama qalabka afraad Axmed inoo soo qaban doonaa Axmed mana soo qabtaa inoo soo qaban waatay bismillah kana soo qabtaa anigu Axmedow صح يلانتا ku eegto waxaan doonayaa dadka inaan barbiyo fasiro kana kale in kadib loo xaaso xukun garanaysan oo geeba qaarkiin dhahantii waxa ma xashiishu waxa laga soo qaadaa laakiin baan idin kala baxo idinka iyo Axmed si uu noo sharaxo si uu noogu sharaxo qalabka moodo casriga hay Axmed soo dhow aad baad masantahay walaal waxa weeyaan horta wasaad sheegtay sida mobilka ku sameeyay loox wala wada arkaya wuxuu ku sameeyay waa loox looxan aniga ku dul rakibay qalabkan wuxuu iga saacidayaa alaabtan halkii ka kala daadan lahayd inuu isku soo ururiyo bahalkan waxa weeyaan horta waxa loo yaqaanaa bahalkan wuxuu dareemayaa waxa jirta wax loo yaqaan birlabtu waxay leedahay laba cirif bay leedahay oo loo kala yaqaan notebook iyo softbook waxaana lagu dhigtaa chapterada lagu barto iyo cirifka maraa iyo cirifka galbeed marka waxaa jirta chapter lagu dhigtaa jira galaasatooyada ama foomtooyada iskuulada dugsiga sare chapter la yiraahdo magnetism baa ku jira ardayda la dhigo waxaa jira baashan waa birlab tanada u jeedaan waa birlab magnetism kala sheegaa waa tan waa birlabtani iskuulada waxaa lagu bartaa cidii samaysay wadankii ugu horeeyay helay wixii laga sameeyay waxay ka kooban tahay ayay ka sheegaysaa waxay birlabtan leedahay laba cirif bay leedahay sida u jeedaanba cirif notebook baa lahaa cirifna softbook balse laakiin kuma kala qorna softball iyo notebook kuma soo kala qorin marka macallinku hadii jeer wuxuu dhigaa notebook iyo softball yani qaacidooyin macallinku wuxuu ku wareeraa sidii ardayda ugu fahansiin lahaa war xaggana waa sawdkii war xaggana waa notkii xataa sometimes waxaa jirta mararka qaar in rules uu dhigo gacmaha kale lagu jaamliyo marka adigu markii ay kugu adkaatay inaad notkii iyo sawdkii kala fahanto ka arday ahaantee ayaad u fikirtay waxaad tiniyow qalab la taaban karo صوتكي يا نوتكي وكل شيء يسمى هي صح انت شيء اي marka baashan waxa leedahay notebook iyo softbook kuma qorna laakiin electronic ay kooban ayeen ku ogaan doonaa marka laba leer baa ku yaala meesha laba indicator kaas waa casaankan waa blue wuxuu taagan softbook waxa ku qoran s ayaan soo gaabiyay ardayda practical aan ku soo halkana n ayaa ku qoran aan soo gaabiyay notebook halkan socket yar baa ku yaala waxa galay battery 9 voltage halkan waxa ku yaala sensor baa loo yaqaano oo dareemaya magnetic field ayuu dareemaya marka okay battery waa kan aan isticmaalina waxaan gelinaa socket-keen gelinaa markaan gelino socket-kii uu noo shimayaa أحمد السودكيت واحد كفى إليسي طب كم بتجلسي مكان بيتري بنجلي بيتري أنا كتجلسي رمضان هذا وسبعي بحضر يا ريس أنا أقوليها راح أنا هذا سمعت أنا صوريها عدو سؤال كوديو كل حاجة هو إنك سو شغلنا اللي أحمد راح نحصي دونا قرب كده كعوي صح لسان كانوا كلام بواحد شراء قف كوسوري ها هاي وشراء من صاحبنا هيبة شراء أو عاوية مركي عن أباهضي مركان قلب سميه قلب في مرحلات هدوم صومري وضعون وطعن فيديو إلى مين موجود دورة مر واحد شتينا قصاد دول بندق جري جوبتي واحد شتى
buugta kala jildiya adagii jildiyada qaar baan intaan jarto qaab aanu jarto afarkiisa ayaan agabka ku dul rakibi jiray si uu igu koobo qalabkii aanu iga kala qaadan laakiin markii dambe waxaan silitay qalabkii maadaama aad waraaq ku dul rakibtay waayiradii soo jeedaan agabku soo wada jeedo markaad bulshadii la tagto oo aad tiraahdo qofkii kugu dhawaa la tagto ka war waxaasaan sameeyey qofkii wuxuu ka sheekeeyaa simbali wuxuu ka sheekeeyaa agabkan waayiradan iyo waxaan muuqda markaa fikir baa igu dhashay ah alaabtan sadaas إذا ماشي واحد سوق يلا لا تشير لا سؤال القرآن علبة وتكتير كعاوسي أجا وكما وأنا صاحب النهي هو سيد عبد الله لهذا سيد علي عبد سيد علي سيد علي نوحو يستا ميل فرنيتشر أو أبتن بيها لو حلو سمايو مركز سيد علي بان أتجي معناته يقول ريسي وحنا كذا البضي إن أفهم كان كل هذا يسمى سيان أرب كان سميه وهو أسطورة مركز سيمبل ويله فهمي wuxuu lagu yiri maxaad u jeedaan la kulaabto noocasan wada barnaamijka noocasan leeyahay waxaasan sameeyay marka ma caawin karaysaa ii kale buu yiri markii uu risay uu alaabtii ka buu foomka doonayay soo sawir iyo soo sheegay waanu keenay alaabtiga caawiyay markuu arkay fikirkayga alaabtan aan watay noocay u shaqeynayeen shaqadooda wuxuu igu yiri oo ii balan qaaday in wixii ka dambeeyo igu sameyn doono flash meeshii tahay alaabtu waxaan u baahday ka caawinayo حتى الآن هو عاوية كفكر هان كأقوال كقلب هان أنت هو عاوية وقت أحمد هو واحد شيء إن كعاوية قلب كترهان كل واحد ما كله كل سانجري صح مركا إن كاسو كل ده هول بدون بقوة قصي صح هذا وضيع إنتنا برامج كود الجنة تحوذا وحنا دي بنا قاضية إن كأحمد عاوية يقول إن كلاو حشري سكونا قلبية قار كعاوية لبلا في اليوم توصل قدامهم دونتان balse barnaamijka aan hore ugu sii socono barnaamijku waa barnaamijka kartida hal-abuurka axmedow inoo tijaabi qalabkan qaabka uu shaqeynayo iyo waxa uu yahay dadka si fiican si fahansiin sidaa musaa sheegtay baashi waa tan wada sharaxnay la fahmay bilabtina waa tanaa sensorkan baynu dhaweynaynaa marka sensorkan dhaweyno waxaa dhici doonta inuu noo kala sheego labadii cirif inuu noo kala sheego markaan switch waa ku yaala waan shidaynaa imika indicator baxaya axsaan buu baxayaa waa not ball weeyaan kan baxayaana waa not ball kan ma buu bakhtiisan isagu waa blue buu baxayaa birlabti waa tanaa sensor kan halkan uu ku yaalaa waan u dhaweynayaa cilif labadan cilif mid ka midaan saarayaa kadib wuxuu ii sheegi doonaa indicatorku wuxuu tusi doonaa cilifkaan saaray noocuu yahay tusaale imika kaasaan dhaweyn waxaa shidmay indicatorkii bluegaha waxaana baktiyey ka casaayeen notballka marka cilifkan waxaan aqoonsaday inuu ii yahay sotball waan ku celinayaa ma shidmay waayo cilifkan waa isla garan wuxuu igu waxa weeyaan waa sotball marka cilifkan kala dana rogaya wuu rogay wuxuu shiday indicatorkii kala casaa ayaa baxay marka saas ayaa loo isticmaalayaa ardaydiisii oo simbalas oo miiskiisa fadhiyeen inanka ardayga ahaa ayuu maxaa ku raadayay tijaabinaya marka waxaa halka ka cad isdaamow in aynu si yaro fudud ardaygii chapterka dhiganayay maatiisanka uu u kala saari karo birlabtii laftigeeda intuu jeeb kusoo qaato uu isagu maxaa ku raadayay tijaabin karayaba waa tahay daawadayaal san hore usoo wada xusnayba axmed baashaas u sameeyey wanagaynu tijaabinay southballkii iyo northballkii haddii southka northka loo dhaweeyo waxaa laga yaabaa inaanay bixin laakiin haddii lagu hagaajiyo sawdka haddii lagu hagaajiyo way baxaysaa soma axmedo dadkasta laambadbaxaysa waa tahay daawadayaal sidii horeba aan usoo xusnay qalabkani wuxuu ahaa qalabkii noogu dambeeyey ee barnaamijka aan kusoo bandhigayno inta barnaamijkaygana uu socday waxaa kaloo naga xasuusina axmed muu sameyn qalabadan oo keliyata qalabo fara badan buu sameeyey laakiin barnaamijkan waa barnaamijkii ugu horreeyey la magac baxay kartida hal-abuurka axmed baana nasiib u yeeshay in laga duubo qalabkana waanu kusoo bandhignay qalabyadan kasii cajaa'ibsan oo haddii la arko axmed runtii ay dee noqonayso qof kastaaba inuu axmed u yimaado oo dhow axmedow waxaan xaggee ka keentay seed u samaysay waxaa kaloo iyadana iga xasuusina ganacsatada dadka electricity ku takhasusay ama qaybaha leyrka dee kolley qof kasta muwaadinku markuu wax soo bandhigo haddii halkaa lagaga hadho waxaa laga yaabaa inuu qofkii iska niyad jabayo marka idinka naftirkiinu dee inaad axmed gacan qabataan talooyin iyo tusaalaba wuu idinka baahan yahay laga yaabaa in laambadaha xumaaday oo keliyata
aynu anagu u baahano inuu Axmed inoo sameeyo kuwan kalena waxa ka faa'iideysan kara dhammaan dadka isticmaala ganacsatada yaryar haddii kaareelayaasha noqonaysa wax oo dhan waa tahay barnaamijkeennii kartida hal abuurka intaasaanu kusoo gabagabaynaynaa Axmed baa marti noogu ahaa asbuucan Axmed waan uga mahad celinaynaa waqtigiisii qaaliga ahaa ee uu noo soo huray sidoo kale Axmed waxaanu leenahay Axmedow qalabkan iyo qalabka si cajaa'ibsanba waanu kaa sugaynaa waxaa kaloo iyadana markasta naga xasuusina waanu u mahad celinaynaa mahad ballaaran shaqaalaha iyo mulkiilayaasha libaaxa la cashe amaba beerta libaaxyada oo iyagu nagu casuumay inaanu barnaamijka xaggan ku duubno barnaamijka quruxda badan aad arkaysaan والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.